بسم الله الحمد لله maanta taariikhdu tahay 7 bishii 7 2020 maxkamadda gobolka Banaadir waxay u fariisatay eedii loo haystay eedeysane Cabdicasiis Axmed Gurbiye eedeysanahaas oo lagu soo eedeeyay xafiiska xiriiriyaha guud ee qaranka ku soo eedeeyay qodobada 328 iyo 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dooddeer kadib maanta waxay ahayd dacwadii dhageysigii ugu horeeyay ee eedeysanaha maxkamadda lagu horgeynayay waxayna qareenadu ay sameeyeen sortaag ay ku saleynayeen qodobada lagu soo eedeeyay iyo xeerka lagu soo eedeeyay iyaga oo sheegay inay tahay in lagu eedeeyo xeerka saxaafadda waxaan rabnaa inaan cadeyno oo aan u bayaamino dhammaan intii danaynaysay ama inta daawan doonta in eedeysanaha aan loo haysan wax la xiriira ama ku tacalluqa mihnada saxaafinimada ee uu ka hadlayo xeerka saxaafadda iyo inkastoo xeerkaasi uu yahay weli xeer aan dhammaystirayn guddigiina uusan jirin isla markaana wax ka bedel uu ku socdo oo baarlamaanka uu hor yaallo marka waxaan rabnaa inaan cadeyno in eedeysanaha uu galay dembi caadi ah laguna eedeynayo xeerka ciqaabta guud ama xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidaa daraadeed waxaan rabnaa inaan arrinta cadeyno eedeysanaha wuxuu la mid yahay qofka caadiga ah ee gala faldambiyeed magaalada marka uu joogo ma aha wuxuu ku soo qoray hay'ado warbaahineed ama isaga oo shaqadiisa ku dhex jira uu sameeyay waa warar been abuur ah fidintooda oo khatar ku ah amniga caamka ah kuwaas oo ku sameeyay akoonnadiisa khaaska ah ee uu isagu leeyahay ama page ahaado ama bartiisa Facebook ah arrintaas rabnaa inaan u cadeyno ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baadna u mahadsantihiin